marka hore markii uu sidan kugu soo furmo Winexpert-ka waxaad ku dhufanaysaa meeshaas hoose menu ay ku qoran tahay ku dhufsanaysaa kadib waxaad taabsanaysaa meeshaas kore ID ay ku qoran tahay taabsanaysaa markii aad taabato kadib waxa ku soo baxay sidan kor ayaad u wadaysaa kor u jiidaysaa shaashada kor u jiiday kadib waxaad taabsanaysaa meeshaas personal profile ay ku qoran tahay kadib waxaad taabsanaysaa meeshaas kore field in personal date ay ku qoran tahay taabsanaysaa kadib meesha ugu koreysa magacaaga geline magacaaga labaad halkaas ayaad geline magacaaga saddexaad halkaas ayaad gelinaysaa date-ka aad dhalatay halkaas aad gelinaysaa halkaas goobta aad ku dhalatay geline halkaas Muqdisho ka dhigaysaa halkaas haddana Muqdisho ka dhigaysaa meesha labaad halkaasna waxa ka dhigaysaa address-kaaga ama xaafadda halkaasna waxa ka dhigaysaa document-kaaga tusaale kor waxaan ku buuxinayaa magacayga midka labaadna waxaan gelinayaa magacayga labaad sidoo kale midka saddexaadna waxaan gelinayaa magacayga saddexaad markii intaan aan sameeyo kadib meesha date-kayga ayaan gashanayaa waa kaas goob marka aan dhashay meesha dhexe Muqdisho aan gashanayaa sidoo kale meeshaan region ay ku qoran tahay iyaduna Muqdisho iska gashanaysaa Muqdisho ku dhufanaysaa kadib meesha city ay ku qoran tahay iyaduna Muqdisho baa ka dhigaysaa kadib meeshaas waxa ku qoraysa anaga doodana ka dhiganaynaa xaafadada ka dhiganaysaa xaafad macquula kadib meeshaas document ay ku qoran tahay laba document ay ku jirto marka aad ku dhufato ku soo ID document isaga dooranaysaa national ID document way ID document ka dooranaysaa kadib meeshaas serious ay ku qoran tahay wax adiga ku gaar ah ku qoranaysaa aniga AB12 ku qoranaya kan xigana sidoo kale meeshan waxa ku qoranaysaa date-ka yani aad dhalatay aad ka dhiganaysaa date-ka adiga aad dhalatay markii aad ka dhigato halkaan haddana waxa ka dhigaysaa date-ka isaga la sameeyay ee ka dhigaysaa marka halkaas aad ku dhufsanaysaa kadib inta marka aad sameeyso sidaas uu kugu dhanyaa kadib calaamadaas uu ku soo saaraa okay aad leedahay sidaas uu kugu dhamaaday uu wareegana wuxuu ku soo saaraa xogtan kadib dib uga laabanaya waa ka akoonka waa aragtaa magaca ku qoran haddii aad isticmaasho Winexpert fadlan waxaan ka codsanayaa inaad la xiriirto sariflaheena ARK Exchange aad baad u mahadsantahay